السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلي ولكن حسن محمد قف كستا oo fiidiyowgan daawanaya ama soo booqday kanaalka nolol wanaag waad ku mahadsan tahay soo booqashadaada maadaama aad nala wadaagtay waqti ka mid ah waqtiyadaada daawadayaal waqtigu waa shayga ugu muhiimsan ee ka mid ah nimcooyinka ugu waaweyn ee Ilaahay ku siiyay inaad hesho fursad aad wax ku qabsan karto waa shay qiimihiisu aad u weyn gaar ahaan waqtigan aynu joogno waxaa yaraaday waqti saacaduhuna way iskurayaan iyadoo daqiiqadba ku dhiibayso daqiiqad kadibna saacadba saacad waa arrin u baahan inay siday tahay looga faa'iideysto mowduucan maanta wuu ka duwan yahay mowduucyadii hore waxaan jecelahay dadka walaalahaya oo ay ka mid yihiin dhalinyaro haysata firaaqo badan laakiin si aan xasuusnayn muhiimadda firaaqadu leedahay ama ku tanjir isleh waqtigu wuu ka tagay kaliya taynaan tuso wajiga dhabta ee waqtiga daawadayaal waxa isweydiin leh marka hore waqtigu muxuu yahay marka aynu ogaano waqtigu wuxuu yahay fahno macnihiisa ayuu inoo cadaan karaa wajiga dhabta ee waqtigu waa noloshaadii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu kugu talagalay xilli aad noolaatid noloshuna waa waqtiga aad nooshahay waxaan u maleynayaa inaad fahantay macnaha waqtiga ama noloshaadu waxay noqotaa mid ku soo dhaaftay ka faa'iideyso ama ha ka faa'iideysan iyo mid aad hadda nooshahay iyo waqti soo socda haddii Ilaahay ku gaarsiiyo haddaba halka ay ciladu ka taagan tahay dhalinyarada ahaa wuxuu ka fakari oo ku mashquuli nolol soo socota mustaqbal inuu noolaan doono aanu hubin kii weynaa ee waqtiga badan noolaa wuxuu isku cilkaabin waqtigii ka tagay oo uu ku mashquuli laakiin labadooda waxa maslaxad ugu jirta kaliya tayagoo ku mashquula ay hadda nool yihiin waqtiga ay hadda nool yihiin maxaa yeelay saad waqtiga aad hadda nooshahay uga faa'iideysato ayuunbuu mustaqbalkaagu noqon waxba ha isku cilkaabin waqti ku dhaafay kaliya xooga saar aad hadda nooshahay waa hubaal inaad midhiisa mustaqbal ka dhigan doontid wixii ra'yigan ula wadaag komitiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh